بسم الله الرحمن الرحيم. مشرح مدحوينه وقاميها حزبي ودجير عبد الرحمن عبد الشكور ورسنه سنتر كنا سنتر بقدر اللي من آمنين محمد عبدي اللي من يوسف هيلا جمعاله وقاميه جبلان عبد الرشيد جننا ماشي فدي والله قلت تلعب سنه akhyaarta kale macallimiinta iyo professorada odayaasha dhaqanka haweenka gabdhaha quruxda badan leh wiilasha hawo wanaagsan farxad bay ii tahay caawa inaan ka soo qayb galo madashan lagu xaal marinayo saaxiibkay musharax madaxweyne cabdiraxmaan cabdishakuur warsame عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه وحان برتي سنة كي كل سقال بقول سدح يسقاشنك مركز او اهين ارضي ولا برتي شريعة يا قانونك انا يا سبب ها معناه نمبا يفيري هذيك ما لجبت ولا جو ولا دينا عبد الرحمن صاحبكي waxaan ku aqaanaa intii aan ardada wada ahayn nin aad wax akhris badan buu ahaa dadka wax akhriyuu ku jira waan ka maqnaa khudbadii imaamka taban dadka yaqaana waxaa ka mid ah imaamka oo aad u yaqaana laakiin dadka aad iyo aad wax u akhriya ayuu ka mid ahaa waxaan ku aqaanaa nin aqoon iyo karti iyo dulqaadba leh waxaan ku aqaanay oon ku bartay qoys wuxuu ka soo jeeday hooyadiis iyo aabihiisba dad dalkan dadkii u soo shaqeeyey ka mid hay ahaayeen aabihiisna ciidanku ka mid ah hooyadiisna sidaas oo kale ahayd weliba kadibna agoonnima lagu soo koriyey nin dalkan jecel oo dalkan u taagan arday hadduu ahaa hadduu macallin ahaa hadduu shaqaale ahaa iyo hadduu madax ahaa intaasaan ku aqiiday waxaan ka mid ahaa dadkii nasiibka u helay oo aan marnaba aqbalin in ay dhegaystaan been abuurkii laga faafiyey cabdiraxmaan cabdishakuur dabcan waxaa iga saaciday aqoonta aan u lehay dad badan oo hogaamiyaha aan aqoonin oo marar badan iga warsada aan arkaa oo hogaamiyaha waa nin ilaahay dhirirna siiyey basdatan fi lcilmi waljismi haysta marka marar badan oo ka mida waa u sheegaa waxaan idhaha dad badanaaba dhirirkaaga bis isaga xanaaqsan nin dheer oo weyn oo saas kusoo fiiraa markaa aragto qofka xoogaa waaba isku naca marka waxaan idhaha dadka hag marina dadka iska salsalaan oo wixii oo la joog oo kaa isu gaabi karta isu gaabo marar badan oo ka mida misunderstandingka cabdiraxmaan laga qabo ama waxaa qayb ka ah midda kaloo ah filcilmi cabdiraxmaan aaraa badan oo dadka soomaalida aysan u bislaanin uu rabaa inuu ka doodo welina looma bislaanin aqoontiisa darteed iyo mustawaha uu joogo marka mararka qaarna in waxaa laga yaabaa dooda adag intuu soo rido dadku ay isla wareeraan oo ayaan dhan ay baraha bulshada haysato laakiin qofka hogaamiyaha runtii waxaa laga rabaa doodo aysan dadku xamili karin inuu gaarsiiyo oo uusan raacinin tayaarkaa la yidhahdaa sida wuxuu u socdaan biyuhu dhinacay u socdaan inuusan iska raacine inuu ka hor yimaado jiiro oo uu yidhaahdo maya meeshaan biyuhu u socdaan ma aha meeshii dadka la rabay iyo cidda in lagu furo cidda meeshii la rabay in lagu furo intay jirtaan marka waa inuu jeexaa mararka qaar aaraada caawo arrinta laga hadlayo ee ku saabsan badda markii hadda la hadlay oo dee 10 sano aan dood ku jirnay yaa waxaa la ogaaday shaqadii cabdiraxmaan uu qabtay shaqo lama huraana inay haddaad dhegaysateen ilaa shalay iyo daraad iyo doodo iyo dadkii looyarada ahay iyo dadkii madaxda ahay iyo kulli waa la wada hadlay hadda waxaan joognaa meel dhammaanteen aan wada faraxsannahay laakiin waxaan fahamsanahay cabdiraxmaan waxa loo xaal marinaa waxay tahay keligiis baa mar lagu fiirsada baasha marka
wuxuu xaq u leeyahay in la yidhahdo niyow waa run waa faraxsannahay baddina waa la soo celiyey dadkina waa wada faraxsan yihin laakiin adiga gooniyaa lagugu dhibaateeye raalli ahaw dabcan raalli ahaw wax ka weyn oon hadda aan siin karno ma jiraan laakiin raalli ahawda ruuxeedu waa macno weyn bay leedahay runtii walaalkay cabdiraxmaan waxaan leeyahay halkan habeen dhaweyd dabcan xaflad baa lagu qabtay weyn midowda murashaxiinta iyo gudoomiyaha aqalka sare iyo gudoomiyihii hore oo baarlamaanka kulli waa cabdiraxmaan waa la xaal mariyey waana la raaligeliyey ciddii wax ka ogeed arrinkaas waa raaligelisay ciddii kalena waa xaal mariso waxay yidhaahdeen wixii ku soo maray ka mayro waxba hadda lagama qaban kare waxaan rabaa inaan idiin sheego runtii mujtamac nugul aad iyo aad u nugul baan ka dhalanay sababtuna waxay tahay sistamka mar haddii beentu fakato wakti dheer bay qaadataa waa iska dareemi kartaan 2009 iyo 12 Oktoobar inta u dhaxaysay ninkii intaas dad baa oon daba taagnay oo maalin walba qayla dhaaminay oo maalin walba waxbaa naga maqan lahay been fakatay run ma gaartay marmarka qaar Soomaalidu tiraahdaa Cabdiraxmaan wuxuu nasiib u yeeshay horta beentii inuu ka daba tago dad badan baan helin oo fursadaas helin oo inta la masabitay ayagoo la masabitay laga yaabaa inay iska dhinteen laakiin dadka hogaamiyayaasha ah culaysyada noocaana waa soo maraan qaar baa la xiraa oo 27 sano xiraa Nelson Mandela qaar baa la joogtaa adduunka ka dhacda ayagoo dadkooda iyo dalkooda difaacaya qaarna waa la masabitaa masabidka Cabdiraxmaan la masabitana dad badan oo Soomaali ah yaa qayb muhiima ka ahaa dabcan waa laga yaabaa inaan aad loo sheegin laakiin political tension markaas taagnay yaa asaas ka ahaa in sidaas loo bumbuuniyo memorandumka waxaan rabaa inaan u sheego halkaa dadka Soomaaliyeed ay isugu yimid mudane musharax madaxweyne Cabdiraxmaan waxay caawa kuugu yimaadeen intaan iyo inta kaloo adduunka daafeeda ka fiirsanaysaba inay ku raalli geliyaan marka waxaa la rabaa adigana inaad raalli ahayd meel dambe oo loo laabto ma jirto baddi waa soo dhicisay qofkii dhegaystay looyarkii shalay VOA-da laga warsaday dabcan hal arrin oo waxaa jirta Soomaalidu waa dad mararka qaar aasiyada waa damac badan yihin annaga dood baan gudbisanay Kenyana dood bay gudbisatay mowqifka Soomaalida aan hadda ka arkay waxay tahay kii aan gudbisanay ayaga la saxan 100% laakiin waxaa la dhahaa dood aad dhigatay xaqaad adiga hadda haysata ma ahayn laakiin aragtidii Soomaaliya ay ku salaysneed ee badda ku saabsaneedaad miiska saartay Kenyana aragtideeday miiska saartay aragtideen yaa waxaa la qaatay 80% aragtidii Kenya ay qabtana 20% laga qabtay 80% haddaan la soo hoyanay oo si diblomaatiga kula soo hoyanay oo wiil nooga dhiman oo gabadh nooga dhiman oo dib naga soo gaarin oo xoolo yaroo nooga baxay ma ogiye iyo 10 sano sugaynay meel fiican aan joognaa weliba waa markii koowaad diplomatically aan wax u soo ceshan dood noocaas oo kale ah horaba looma furin cigaal inta ka waraysa Kenya la furay dhulkan North Eastern NFD ayagana waxba lagama soo celin xagga loo wada sax kana lamaba furin ba Soomaali galbeed marka waxa ku muuqata doodii koowaad ee miis la saara ninkan odaga ahaa horta soo furay oo yiri waxaan laga wada hadlo haddaad dhegaysateen dooddu waxay ku salaysneed dhammaan Kenya intii la soo jiraba waxay sheegan jirtay baddooda inay u xadeysantay waxa Cabdiraxmaan sameeyay waxay ahayd baddaan laga wada hadlo xadeynteeda memorandumku intaas asaas ka ahaa xadeyntiina annaga iyo Kenya wada hadal haddii la wada hadli waayana wada hadalka haddii la isku fahmi waayana the only option of run waa in Hague la isla aado dabcan musharax madaxweyne shaqadaas si fiican buu u soo qabtay laakiin runtii waxaa xusud mudan haddaad markii xildhibaan Aamina sheeg looma sacbin madaxweyne Xasan Sheekh waa fiirinayaa ogaay waxaa istaagtay waa soo gurmatay adna waa odag waa loo gurman doonaa waxaa xusud mudan madaxweyne Xasan Sheekh Kenya wuxuu ku qadciyay inay dooda badda la tagto haddaad hadda dhegaysateen Kenyaanti waxay isku haystaan horta maxkamadda maxaa la geeyey inaad dhegaysateen in kale moogi su-aasha Kenyaanka hadda waxa waaye
horta maxkamadda maxaa la geeyey war balaayada farahana lagu cunay ma maqli jirin sheekadii reer midigu ah warba farahiga baa lagu cunay horta saaxiibkay xasan sheekh xirfadii uu farahooda kula cunay uu leeyahy madaxweyne cabdishakuurna xirfadii uu ku geeyey uu leeyahy 5 sanan garaacay farmaajona waa xabadaana u ogolaaya waa adkaysta asna odag waxaa la rabaa marka saaxiibkay walaalkay meelo badan buu soo maray waa ogna aniga asaga xafiiltan iska siyaasadeed iyo kaftanku waa naga dhexeeya laakiin habeenna kuma aanan kala maqnaanin xafiiltan siyaasadeed degdheer iyo ragga siyaasiyiinta cabdiraxmaan iyo siyaasadda caawana waa lasii kala jeedaa habeen dambana waa laisu soo jeedaa siyaasaddu cadaawad ma nacayb ma isdil ma xataa cay ma waxaan rabaa dhallinyarada hadda caawa meeshan joogta meeshan waxaa aad looga hadlay c b b hogaamiyaheediina waaba hadlay ex hogaamiyaheedii c b b aad looga hadlay adinka ruuxin waxaa laydinka rabaa inaadna c b b noqon aragti waa inaad wax ku diidaan aragtina wax ku difaacdaan waa sheegay hadda ka hor maqaal baad soo diyaarinaysaa khudbad baad soo diyaarinaysaa mid baa meesha wax ku soo qoraya tuug baad just simple like that war qof weyn ma soomaaliyada aan rabna inaad dhistanina sidaas ma ku dhismayso waxaan rabnaa marka adigoo aad iyo aad u mahadsan warku waa macaan yahay caawo kale waa la faraxsan yahay waxaan rabnaa hogaamiyaha senatarkii odayaashina waa iga dambayn doonaan xaalmarintaasa waxaan u nahay odayaal u yimid waa xaal marinaynaa waa iswada xaal marinaynaa intii la caayay iyo intii la dhibay iyo intii runtii dee qofka in la dhibaateeya ahalkiisay wax ut ay dhibaato gaarsiinaysa marka hadda kadibna waa inaan wax ka baranoon ka fiirsanaa siyaasadda berri dhammaan doonta inaadan qofna u jaa'ifayn qofna u caayin qofna u soo taagnaanin aad iyo aad baa u mahadsantihiin guulayso hogaamiye waa mahadsantihiin